qaar ka mid a cuqaasha iyo odayaasha beelweynta Bahasamaroon oo shir jaraa'id ku qabtay hotel Galooley ee magaalada Gabiley ayaa eedeymo kulul u soo jeediyay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici. Cuqaasha iyo odayaashani beelweynta Bahasamaroon oo arrimahaasi faahfaahinaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa: halkan Gabiley waxaan ugu fadhiisanay anagoo 20 oday ah ka kooban 4 beelood ee Bahasamaroon. shirgudoonna uu leeyahay Sudaankii guud ee dibadda Suudaan Ibrahim Jaacan Samatar. sidaa uu sheegay dida 20 cisho ayaa loo fadhiilay kala shaadhaynta musharaxiinta golaha baarlamaanka iyo deegaanka wixii aan u qorsheeyno. waxaanu ku qorsheeyno ku heshiinay 3 xildhibaan 2 deegaana iyo mid baarlamaan ah. 4 beelood dibadda markaan sidaa ku heshiinay qoraal baan wada samaysanay anu ku mideysanahay. qoraalkii heshiiskii waxa dhabarka ka jabiyay madaxweyne ku-xigeenka dhabarka ka jabiyay 4 beelood beel kamida ayuu la baxay. anu gudubta inta leegday waxa uu geeyay ku kalifayay ama se uu ka helayo ma garanayo. waxa se xusi doonta taariikhda ayaa xusi doonta dheefteedana uu heli doona. waxaan halkan maanta u sheegaynaa ummadda Bahasamaroon ee gobolka dibadda Maroodi Jeex ku nool ama Samaroon bariba ah. xildhibaankii golaha baarlamaanka ee u soo sharaxnay u soo qorsheynay ku soo heshiinay nin baa degta ku qaatay oo ka tuuray nin mid degta ku sidana xisbigii aanu geynay buu geliyay. halka dibadda cid ku jirta maanta waa ninkii kaas degta ku sitay. wax musharax baarlamaan oo golaha baarlamaanka oo loo jooga maanta oo aanu Bahasamaroon leedahay ma jiro oo ma joogo. fariintaana waxaanu gaarsiinaynaa shacabkii marka horeba soo saaray ee Bahasamaroon amba Samaroon bari ahaa ee ku soo saaray magaca Bahasamaroon kuna codeeyay magaca Bahasamaroon. kursiga iyo xildhibaanka maanta dibadda halka tagay waa nin Saylici watee yaa uga soo qaada baashi libaaxley codka uga keeno halka lagu cod ugu baahayna maanta. waxa halka loo yaalanaga waa ninka deegaanka 4 beelood inuu baabiyo kala dirana uu ugu talagalay kumana kala tagayno beesha uu sida shaydaanka naga maro soo laga haysto wala ayaa mooyaane inta yadii kale midnimadeedii wada jirkeeygi waanu ku mideysanahay waana lagu wada joogaynaa. marka deegaankaana waanu soo saarana hadii Ilaahay yiraahdo waxa Ilaahay ay ka noqoto awoodiisa. halka marka arrinka waxaan aad iyo aad uga tacsiinay laftiisa hawsha aan u fadhiyaan u soo qorsaynay ummadii aan wax laga sugaysay taleeyahay inaan u fadhinay intayeedii deedan ninkaasi dibadda maanta isagu baawarkiisii ku baabiyay uu dhabarka ka jabiyay. taana marka wax codoo aan u haynaa ma jirto. halkuu cod uga soo saaray isagay u taala waa la isku yeeyo la isku baran insha Allah. waxaan ka hadlaynaa dhacdooyin soo dhacay oo ah wada tashigii beelihii Bahasamaroon ee aan u fadhinay kulanka 21 cisho xulashada musharaxiinta cidda maanta sanadka ugu qayb galaysa golaha wakiilada iyo golaha deegaanka. waxa uu fadhiyay 20 oday iyo Suldaankii guud oo ah Suudaan Ibrahim Jaacan Samatar. waxaan ku heshiinay 3 nin xabad golaha wakiilada 2 golaha deegaanka. heshiis baan ku galay waan saxeexnay 21 iyo Suldaankuba waan wada baxnay. heshiiskii waxa ka baxay 4 Bahasamaroon beel kaliya beeshaas oo dabada ka wado Saylici kursigaana uu soo weeraray ugu tala galay inuu Bahasamaroon dhabar ka jabiyo oo baabiyo. waxaan leenahay kuma baabaayno kuma kala tagayno. waxaan ka koobanahay anagu 3 kale oo aan wali hadda heshiis ku nahay oo hal xildhibaan golaha deegaanka lagu soo haray oo wadano xildhibaan golaha wakiilada waxaan geynay xisbiga ucud ninkii uu degta ku qaatay Saylici uu laga daba keenay uu ka xishoon waay isku soo qaawi Faysal uu siiyay maanta oo aan halkan taaganahay kuma kala tagayna taas Saylici taayadii waan wadaynaa waan dhamaystiranayna. waxaan leenahay halka degta ku qaatay halka cod uga keenayso uga keen sida odayaashu ay soo sheegeen weeyaan. 20 maalmood baan arrinkaagu soo jiray 4 Bahasamaroon anagoo ah
waxaan markaa wadnay midayn baha samaroon sidii ay mid u noqon lahayd arrinkii waan wadnay 20 baan ahayn jeerma waxaanu ahaa suldaanka heshiis go'aana ayaan gaadhnay saxiixiyaan gaadhnay waanu taayeynay arrinkaasina wuxuu ahaa 3 nin oo musharax ah 2 golaha deegaanka iyo mid golaha wakiilada ah arrinkii sidaanu ku dhamaynay cid baa naga baxday afartii baha samaroon kamida markaas arrinkaas de wax walba way dhacaan de dadku wax toosan u leeyahay wax qaloocan u leeyahay wax la qadaray baan markaa u aragnaa laakiin waxaan leenahay saddexdii baahe ee kale sidii anagoo isku tiirsan oo u midaysan sidoo ay soo sheegeen weeyi nin baa digta ku qaaday oo ninkii dul dhigay markay caynkaa tahay dee ciddii baxday ha iska baxdo laakiin waxaan leenahay saddexdii baaho ee kale haddii aanu nahay waa sidii baanu iskugu tiirsannahay ciddaasay lici keenayna siday soo sheegeen weeyaan wax coda uma hayno waxaanu maqashiinanaa somalilan dadweynaha gobolka awdal cid kasta baha samaroon saasaanu ogeysiinanaa inaanaa waxba ugu hayn golaha deegaanka mooyaane annagu waxaanu haynaa hal golaha deegaanka ah haddii la haydhaa waanu keenanaa waxaan sida odayaasha aqrin soo sheegeen maanta waxaanu fadhinay 21 maalmood baan fadhinay 21 nina afar tabeelood oo mishana iyo suldaanka oo gudoomiyaha ah waxaanu isla garanay in meesha deganay in geysanay waxa dadka ku qaatay oo nin dadka ku dul dhigay saylici marka anagu de saylici ninka dul dhigay keenay de kiyaanu keenay maaha wax oona haynaana ma jirto anagu kali waxaan haysanaa nin golaha deegaanka oo saddexda beelood isku haray isu raacsanahay waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilka Case.